daawadayaal war degdeg ah magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland waxaa ka socda dagaalo qadhaadh oo u dhaxeeya markaasi dawladda Puntland iyo sidoo kale kooxda Aranjan oo doonaysa inaan dastuurka Puntland la furniyo sidoo kale arrimo kale ku doodaysa warar iyo sidoo kale xogo dheeriya waxaan haynaa muuqaalo dad markaasi dhiig baxayo oo aan ilaa hadda la garanayn cidda ay yihiin iyo sidoo kale kuwo xabad wiifta intay tagtay xaafadoodii ugu tagtay muuqaalaan hadda idin daawadsiin doono oo halkan idinka muuqda waa muuqaalo naxdin badan oo markaasi goobta dagaalku ka dhacay nalooga soo diray muuqaalada haddii aan idin daawadsino muuqaalada noocan ah waa dad dhiig baxaya inkastoo dadka dhiig baxayaan muuqaaladooda idila wadaagi karin sabab la xiriira anshaxa media u degsan ninkii odayga sameeyay dhaawac gaariyaan oo keen ninka waa dhaawac odayga ninka waa dhaawac inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkaas waa howlkii baarlamaanka waxaa soo adiid inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta قعدتي كانت على صومه هذا يا يلكن هذا اكو غاندي هيك ولا مني صور ما ودي يا هل المكانك الله ما مكانك سكن لي وحمكم حمق اوكي دادي تعالوا مقالك اللي كان هذا معاك ولا لويسه يا ما معدا يا ولا سيدك على العرض السيد السعودي اللي كنت تتوقف سريت تسعى العيال يا رواس واسل يا ما تعالوا اللي في كده اللي في كده يا ليه؟ واقفكم يا ولدي. كيف الله وعم يا؟ لا وعم يا حقك. هي ترى. إنا لله وإنا إليه راجعون. واتى قرو واحد. داني يوم إتاسا قرو ولا هذا وهذا أحمد سلاد ذا. هذا ريون. وين عايش في معرفة حقك الله. حبيت اقول انت معاهم انت قاعد عاوزين وساعد نجا مقرنسا ولك علي بحرك المسيح نو باوتا يا اوتا يا هذا رمي قاري اكرسنا ما لعبت نودري قاري اكرسني ما لعبت رقب حسان دولولين عم يتخصصوا قفصنوا غاد الله اكبر قوني ذلك هو داوع الناس مو داوع والله تهك انا كل عشان روح ما دمي وبيحكنا او جداي نمك عقل ميلن يعقوب انا عبدنا يدا او جداي daawadayaal warar dheeraad ah oo hadda aan helayno ayaa waxay sheegayaan in kooxda Aranjan markaasi si weyn loo jabiyay oo gaadiid dagaal laga qabsaday ciidamo fara badan oo kooxda Aranjan oo dagaalkii laascanood ka soo baxayna halkaasi ay ku dhinteen waa sida aan warar hoose ku yeelnay sidoo kalena ilaaladii gudoomiyaha markaasi baarlamaanka Puntland ninka lagu magacaabo abwaanka ilaaladiisa oo laba ruuxa ayaa la sheegay in halkaasi ku dhinteen
wax faahfaahin oo ciidanka uu Jimcaale watana aan ka helnay ayaa waxay sheegeen oo kooxda Aranjan u doodaysa in dagaalka iyaguna ay markaasi ciidamo kaga dhinteen laba baabuurta 3F ka ahna laga qabsaday wixii faahfaahin ka soo kordha dagaalka ka bilowday magaalada Garowe iyo sidoo kale kooxda Aranjan oo rabtay inay magaalada Garowe gubto wixii faahfaahin iyo sidoo kale xogo dheer halkan ay dib soo galin doona fadlan muuqaalka si share gareysay oo wararkii ugu dambeeyay